assalaamu calaykum. Waxaa maalinka qiyaamaha soo wada istaagi doona dhammaan addoommada kadib markii ay ka soo wada baxaan qabuurahooda. Kadibna waxay u soo wada carari doonaan xashriga dhankiisa si ay u ogaadaan xisaabtooda iyo acmaashooda, iyo in ay ahluljannaha ka mid yihiin Alle subxaanahu wa tacaala ha inagu daree, ama in ay ka mid yihiin ahlunnaarka walciyaadu billaah. Waxaana goobtaas la isku xisaabiyo lagu tiriyaa in ay ka mid tahay meelaha ugu dhibka badan ee la mari doono. Waxaana maalinkaas la keeni doonaa mawaasiinta ama miisaanada si loogu miisaamo addoommada acmaashooda iyo waraaqihii laga qoray ee laga soo diyaariyey. Dadkana waxaa ka mid noqon doono kuwo uu miisaankoodu raajax noqon doono oo uu cuslaan doono. Waxaan Alle subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa in uu kuwaas inagu daro. Waxaa kaloo dadka ka mid noqon doona kuwo miisaankoodu uu hoos u dhici doono oo uu khafiif noqon doono walciyaadu billaah. Miisaanna waxaa loola jeedaa aaladda lagu cabbiri doono addoommada acmaashooda. Sidoo kale waxaa kaloo miisaanka laga cabbiraa in uu yahay cadliga iyo cadaaladda. Haddaan u imaanno miisaanka la isticmaali doono maalinka qiyaamaha, waa miisaan uu Alle subxaanahu wa tacaala soo dhigi doono si uu ugu miisaamo addoommada acmaashooda. Balse sidee buu miisaankaas u ekaan doonaa? Xaggee buuse la ekaan doonaa? Sideese loogu cabbiri doonaa addoommada acmaashooda? Dhammayso muuqaalkan si aad u ogaato su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan jawaabahooda. Balse ka hor intaanan bilaabin, fadlan daawade ha iloobin muuqaalka inaad like saarto. Haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Maalinka qiyaamaha markii la cabbiri doono ama la miisaami doono addoommada acmaashooda si loo kala ogaado addoon walba wanaaggiisa iyo xumaantiisa mid ka badan, waxaa la isticmaali doonaa miisaan dhab ah oo kala leh laba garbood ama laba kafood oo wax la kala saaro oo uu Alle subxaanahu wa tacaala soo dhigi doono si loogu miisaamo addoommada acmaashooda. Waa miisaan aad u dheelitiran oo aanan waxbana siyaadinin oo aanan waxbana nuqsaaminin. Miisaankaas qadarkiisana Alle subxaanahu wa tacaala mooye ma jirto cid kale oo garanaysa. Wuxuuna miisaankan ku sugan yahay oo lagu sheegay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca culimadaba. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa fi suurati al-anbiyaa dhexdeeda ku yidhi: wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay'a wain kaana mithqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wakafaa binaa xaasibiin. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha soo dhigi doonaa miisaan cadaalad ah si loogu xisaabiyo addoommada acmaashooda. Nafna haba yaraatee shayna lagama dulmin doono oo lagama khiyaami doono, xitaa haddii shaygaasu ama camalkaasu uu la eg yahay darro qadarkeeda oo khayr ah ama shar ah, waa la keeni doonaa oo waa loo xisaabin doonaa. Allena subxaanahu wa tacaala waa mid ku filan in uu koobo oo uu xisaabiyo addoommadiisa acmaashooda oo kadibna uu ka abaalmariyo. Waxayna aayaddan inoo muujinaysaa miisaanka isku dheelitirnaantiisa. Can Abi Hurayrata radiyallahu canhu fi lmuttafaqi calayh qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam: wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam: kalimataani khafiifataani cala allisaan, laba kalmadood oo carabka aad ugu fudud, thaqiilataani fi lmiisaan, miisaankana aad ugu culculus, xabiibataani ila arraxmaan, allena subxaanahu wa tacaala uu aad u jecel yahay. labadaas kalmadood oo kala ah subxaana allahi wa bixamdih, subxaana allahi alcadiim. Jamhuurulculamaa waxay yidhaahdeen miisaanku wuxuu leeyahay laba kafadood oo muuqda oo loo jeedo, sidoo kale wuxuu leeyahay carab uu ku hadlo.
camal walba waxaa lagu miisaami doonaa miisaan u gooni ah, salaada waxaa lagu miisaami doonaa miisaan gaar ah, sakadana waxaa lagu miisaami doonaa miisaan gaar ah, birul waalidaynkana waxaa lagu miisaami doonaa miisaan gaar ah, dadka kale xuquuqdoodana waxaa lagu miisaami doonaa miisaan gaar ah. sidaas darteeda waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen miisaanada tiradoodu waxay la ekaan doonaan dadka tiradooda, halka qaarkoodna ay yidhaahdeen miisaanada tiradoodu waxay la ekaan doonaan dadka acmaashooda inta ay la eg yihiin. sidoo kale waxaa kaloo suurtagal ah in halkii camalba uu yeelan doono dhowr miisaan, sida laga fahmayo qowlkii alle subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi suuratulqaarica dhexdeeda ee ah: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. qofka ay miisaanadiisa xasanaadku ay raajax noqdaan oo ay cuslaadaan wuxuu ku noolaan doonaa nolol raalligelisa oo jannada ah. wuxuu imaamu axmed raximahullahu musnadka ku wariyey can cabdullaahi bnu camrin radiyallahu canhuma qaal: qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam: ina allaha sayukhallisu rajulan min ummatii calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaamah. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha khalaa'iqda dhammaantooda ka dooran doonaa nin ka mid ah ummaddayda, fayanshuru calayhi 99 sijilla. markaas buu wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u soo bandhigi doonaa oo u dhiibi doonaa 99 sijilladood ama kutub ay ku qoran yihiin sayi'aadkiisa. kullu sijillin maddulbasar. kitaab walba oo sijillooyinkaas ka mid ah wuxuu ballaciisu gaarayaa ilaa inta uu la eg yahay qofka fogaan araggiisu. ثم يقول له kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ninkan ku odhan doonaa: atunkiru shay-an min haada. intaan ma ku jiraa shay aad inkirsan tahay ama aad diidan tahay? adalamaka katabatiya alxaafiduun. miyay ku dulmiyeen malaa'igtayda wax qorta ee xaafidiinta ah? fayaquul, markaas buu wuxuu ninku odhan doonaa: laa yaa rabb, ilaahayow maya. fayaquul, markaas buu wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku odhan doonaa: afalaka cudurun aw xasana. wax cudurdaar ah ama wanaag ah ma leedahay? fabuhita alrajulu wayaquul, markaas buu ninku wuxuu odhan doonaa isagoo argagaxsan: laa yaa rabb, ilaahayow maya. fayaquul, markaas buu wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku odhan doonaa: balaa, inna laka cindanaa xasana. maya, waxaad agteena ku leedahay hal xasano. wa annahu laa dulma calayka alyowm. maanta wax dulmi ah laguguma samaynayo. fayukhriju lahu bitaaqatan fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh. markaas baa waxaa loo soo bixin doonaa bitaaqo ama warqad yar oo ay ku qoran tahay: ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh. fayaquul, markaas buu wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku odhanayaa: uxdur wasnak, keen miisaankaaga. fayaquul, markaas buu ninkii wuxuu odhanayaa: yaa rabbi, maa haadihi albitaaqatu maca haadihi sijillaat. ilaahayow warqaddan yar maxay ka taraysaa sijillooyinkan aadka u waaweyn? fayaquul, markaas buu wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku odhanayaa: innaka laa tudlam, laguma dulminayo. qaala wuxuu yidhi: fatuudacu asijillaatu fii kifatin waalbitaaqatu fii kifa. markaas baa sijillooyinkii waaweynaa oo ay xumaantu oogu qornaayeen waxaa la saari doonaa miisaanka kafkiisa, bitaaqadii yareedna waxaa la saari doonaa miisaanka kafkiisa kale. fataasat isijillaatu wathaqulat albitaaqa. markaas bay sijillooyinkii waaweynaa fududaan doonaan waxaana cuslaan doonta warqaddii yareed. yuqaal, markaas baa waxaa la odhanayaa: falaa yadqulu isma allaahi shay. ma jiro shay ka culays badan alle subxaanahu wa tacaala magaciisa.
sidaas darteeda acmaasha miisaamidooda waxay ka mid tahay dhacdooyinka maalinka qiyaamaha kuwooda ugu caansan. qaala alqurtubiyu raximahullahu fi tadkira qaala alculamaa wuxuu yidhi culimmadu waxay yidhaahdeen ida nqada alxisaabu kaana bacdahu wasnu alacmaal markii laga dhammaado isla xisaabtanka kadib waxaa ku xigi doona acmaasha miisaamidooda. maxaa yeelay miisaanka waxaa lagu talagalay in lagu abaalmariyo wuxuuna ku habboon yahay inuu ka dambeeyo isla xisaabtanka maxaa yeelay isla xisaabtanka waxaa lagu talagalay in lagu hubiyo acmaasha kadibna waxaa miisaanka loo saaraa si loo muujiyo acmaasha qadarkeeda si abaalmarintu ay u noqoto mid u dhiganta hadba dhinaca ay u badan tahay qofka acmaashiisa. sidoo kale wuxuu qurtubi sheegay in miisaanku uusan ahayn mid ku xukuman qof walba maxaa yeelay waxaa jiraan addoommo uu alle subxaanahu wa tacaala si xisaab la'aan ah ku gelin doono jannadiisa kuwaasoo sidoo kale aanan wax miisaan ah la saari doonin. اللهم إنا نسألك أن تثقل موازيننا اللهم أعطنا كتابنا بيميننا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نأخذ كتابنا بشمالنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين ثقلت أعمالهم في الموازين وثبتنا يا ربنا حتى نلقاك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.